gabdhaha gobol ka mid ah dalka Hindiya ayaa waxa lagu arkay dhaqamo aad u la yaab leh marka loo eego bulshada Soomaalida dhexdeeda. waxay qasab ku guursadaan wiilka ay jeclaadaan xitaa isagu hadii aanu rabin. dalka Hindiya ayaa sanadadan dambe ka mid ah dalka ugu dadka badan leh. taasina waxay sababtay in indhahaagu markasta qabtaan dhaqamo la yaab leh oo ka dhacaya dalka Hindiya. bulshada caalamka inteeda kala duwan ayaa ka faalooda dhaqamada ka jira dalka Hindiya. gobolkan hablahaas ay ku dhaqan yihiin oo loo yaqaan bihayr ayaa waxa ka jira dhaqan aad u gaamuray oo isku raacsan yihiin hablaha iyo qoysaska ay ka soo jeedaanba. gabdhuhu waxay diyaarsadaan dad u soo afduuba wiilka ay doonayaan isla markaasi. isla qoyska ay gabadhu ka soo jeedaa ayaa gabadhooda u daydaya nin wanaagsan. isla kay u arkaan inuu wanaagsan yahay ayay u soo afduubaan. sidaa daraadeed waxaa qaali noqday guurka. isagoo wiilku qaaliyeynayo guurka amba shilimaadka la isku guursanayo maadaama uu isagu soo dooranin. dhanka kale wiilka reerkooda ayaa qiimaha gooya. sidaa daraadeedna waxaa la siiyaa lacagta meherka wiilka gabadha guursanaya. haddaynu ku noqono dhinaca dhanka Soomaalida ee dhaqamadii hore ahaa, waxaa jirtay in dumarka iyaga qasab lagu guursan jiray loona yaqaanay dhabar garaac. guurkan qasabka ah ayaa loo yaqaanaa afduub dalka Hindiya dhexdeeda. haddaba dhaqankan ayaa matala dhaqan hore uga jiray Soomaalida dhexdeeda, balse iyadoo ay ahayd in hablaha la afduuban jiray oo aan ragga la afduuban jirin.